أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمسقا. dhalinteenu waxyaabaha aalaamta ka jirta waxaa ka mid ah waan soo tilmaamay mar horena ihtimaamuhum billacb cayaarta ayaa ka weynaatay nolosha ma diidani cayaar qofku inuu jidhkiisa dhiso oo isdhiso oo cayaartu jecel yahay oo cayaaro kubad ha noqoto baasket ha noqoto orod ha noqoto in la cayaaro maaha mashkilad laakiin inay hadaful xayaa noqoto waxa loo nooliyay inay noqoto waxaad u nooshay inay noqoto inaad laacib noqotaa waxba dunida kuma soo kordhin marka khasaaraad shabaabkeenu waxay u badan haddii maanta wax jiddiyaan weydiino yaa culammadii dunida wax ku soo kordhisay garanaya xataa kuwa reer galbeedka ee gaalada maxaad garanaysaa haddaynu weydiino waxaa laga yaabaa 2 midh inuu ka xasuusto waxaa cilmi dunida yaalla wixii keenay haddaan weydiino dadkii muslimiinta ah iyo halyeeyadii dunidan soo maray iyo saxaabadii nebi maxamed maxaad garanaysaa waxaa laga yaabaa inaan waxba garan laakiin maanta haddaan weydiino tiimamka dunida cayaara ka waran yaa isbiis u ah manchester hebel baa u ah madridna hebel baa ka ah meel heblaayana hebel baa waxa tiim dunida jooga kuwa difaaca ka cayaara warkaa ka kaalay wuxuu yaqaanaa inta caruura u dhalay iyo fasixi dhaweyd halkuu tegay iyo sanadka meel heblaayu marayay iyo waa gaal yar oo aan wax ka dhexeeyaa jirin yani hadafku markuu lumo maka soomaa halkaynu u tukanee muslimiintu dee madiina islaam mooyaane aan gaal laga ogolaynba soo maaha ardada iskuullada dhigata subaxii iskuulka khamiisku waa dirays dhammaantood khamiis bay sitaan casarkii haddaad soo baxdo markaa qof dhallinyaro arki maysid ilaa iyo garan isboortiya oo nambar dhabarka kaga yaalla halkana magac weyne kaga qorayay buu sitaa waxaa dunida cayaare arkaysaan makay dhex tuban yihiin aduu meel kale maxaad u malayn marka haddii maka foor bildaha yaallaa u yahay maka haddaad saa u eegto inaan yaroo dugsi dhexe ku jiraan garanku sito dhammaantii waa sport waana maradoon iyo faaladoona halkaa kaga wada qoran yani kuwaasaa ku wada yaalla idan waa alam itijaahii shabaabkeenu dhanku u sii socdo oo runtii waa alam xooggan oo jira waxaan leenahay alamka dadkeennan haysta waxaa ka mid ah kuwa u dhigmo atacalluqu shadiid ay aflaamta iyo muusikada iyo waxaas maalin dhaweyd norway inan yaroo kanada yaraa yimi wixii dhallinyaro joogtay airportka agtiisa ay u hoydeen markaasaa la yidhi warde kan malawaabidiiliyo boolisku meel dambu ka saaray waaba la wada ooyaya maxaa loo ooyaya waxaa la yidhi inan yaroo heesoo boodbooda weeyaan wiil yaroo cadoo boodboodaya oo muxuu samaynaya wuu heesaya khalaas dadkani waxay dhowr maalmood bay bannaan cidla fadhiyeen inay arkaan la sugayay waa umma hadafkii ka lumay aalaamta muuqata waxaa ka mid ah haddaynu nihi qur-aanku dhalintu inoo tilmaamay kuwa waalidkooda ateeca aalaamta muuqata waxaa ka mid ah shabaabkeenniiyo waalidkoodii uu la fududaaday khafiifsaday wax weyn u arag warkiisu ka soo qaad ma leh ixtiraam ma jiro inantu waxa laga yaabaa hooyada inay tidhaahdo dee maxaad aniga horta dherigay igu dirtaa karsada dee idinba waa wada joogtaana waa dhantiine haddaba waa inantii dhammayda la dhalay guriga joogtay inanku waxa laga yaabaa haddaad tidhaahdo ninba ii sheegaya aabba koobka ay soo qaad baan ku celiyey buu yidhi 2 jeer oo maalintii dambe wuxuu yidhi horta aabba mahaandhi ka baa halkan unbu fadhiya xodhaya waxay soo qaadaysa yacni caqligu wuxuu ka gaadhsiisan yahay aabbihii markuu yidhi koob ii soo qaad inuu arko odaygu mahaandhi ka baa kaan loo shaqaynaya muu koobkiisa doonto waa alam runtii alam halkuu ahaan lahaa inan iyo inanba dad waalidkooda adeeca ducadooda u arkaa wax weyn taladooda u arkaa caqli nolosha soo tajribeeyo ka weyn yani waalidkaa wuxuu soo jiray noloshu maaha tanqal iyo buugga lagu dhigto qura noloshu waa tajaarib alxayaa waa qofka bini aadamka wuxuu soo maray waalidku nolol buu soo maray caqli badan buu sidaa ay ahayd inaad ka dhimbiil qaadato adigoo dhallinyaro ah ka tusaale qaadatid
waxay ahayd inaad dareentid nicmatu lwujuud xataa aabbahaabaa leh waxaan leenahay waxaasoo dhammi waa aalaamtu sheegay sheekh saciid ibnu musfir waana aalaam caalam alislaami oo dhan haysa haddaadu isagu sacuudiga ka sheegay meel kasta ka taagan aamaashaynu u baahannay waa maxay waxa weeyaan inaynu abuuro dhallin toosan oo ku toosan diinta rabbi dhallin toosan oo ku toosan maxay diinta rabbi subxaanahu wa tacaala inaynu abuurno dhallin toosan oo ku toosan waxbarashada iyo cilmi baadhista ereygaa waan ku celcelinayaa ikhwati waayo idinku jaaniska haysataan soomaaliya kuwa jooga jaaniska ma haystaan intaasoo jaamacadood baa ka furan laakiin waa kuwan qalinka iyo waraaqda la isku madoobeeyo wuxuun bay tari insha allahu tacaala laakiin idinku intaasoo jaanis baa haysataan oo wadannada ku nooshin duwalka jooga ay rabaan inay lacag idinku bixiyaan oo professor idiin sameeyaan oo wax walba oo ay fan baad baran kartaa laakiin dadkii himmadan lahaabaa liita idan aamaasha aan qabaa waxa weeyaan inaynu dhalinteenna dib u afuufno oo ku afuufno cilmiga iyo sugistiisa waxbarashada iyo qiimaheeda markaasaynu noqonaynaa kuwaynu la joognana dad muxtaramiin ah oo daatadooda sugaya dadnimadooda haddaad noqotona waddankaagaad noqonaysaa qof wax ku biiriya waxaa laga yaabaa dad badani inay markiiba kuu soo qadimaan caraaqisha yaryara ka hor imanaysa loon baa la qaadanaya loon waxaanay lama ogola kan lama ogola war dadku waxbuu bartaa isagoo aan loon qaadanaynba waxbuu bartaa wuu dadaali karaa qofka bini aadamkii wuxuu ku xidhxidho war halkan baa timiyadaan cidina ku keenin waxaa qaarad iyo bad jiroo dhan baad ka soo gudubtay markaasaad leedahay jaamacaddan waddada loo maro ma garan karo hada macquul ما معقول آخر الدنيا بات كتمي ديورات فول عركة كبح بدمر دولك تشيح صحارى مر بدمر ما لها تكسب بوديني ما شرتو وحاصرنا واحد كجب بودي عقلت كو أديك ستي ساد وحاصرنا نمر الهاي عقل جاينا وحكو برنكري ويدو مالين ما ينشريش وحبرشاد مليه ملها دب بيلاده أرض يقول جوا فقير أنتو أرضي مشكلات بدن بيلاده عدادس بدن بقول كل مية مررك قاركود وحلا أركا إن مدب كاغو راسيستي وحلا مداد لكم مررك قاركود وحلا أركا إن عندي أديك اللجوء تلقلين وحبرشوين كسره ما مباور إن أدوات كان نقطة شقوين كهوسة قبضت لكن أديك حاجة سره هنجوري كاجي كده ده هنجوري يا حصان نغني ولا يدي ده لا في ما هي وحنا مركا كوع العلين يا لي يا آماش يدي ديلدو رجدو أنقبوا وحكم ده إن يدلنت إنه دب السمايان نجاح علمية رج يدو مربع إن السمايان محي نجاح علمية قول علميات أماشي أنقبوا وحكم ده اللي يردوا وقت جودا أنت وجود بدن لين وح معنا لكم بحية رموز تد عالم كما قشه ما شو دونه كيمات ودد ذالي وضيق مريكن كوغو اختراع بدنا أديسون أيا وحلا ويدي عبقري نمدو انتبه علمي وحبر شاه وحولي أما انتبه نصيبه 1% با chance أبودي 99 نوا صبر إيا ددال ولي بني كاسي كن إيا ديراد اختراع بولي باتين كن إيا إن كن شيء كبدن بدوني ده كسيو كردي يو تكنولوجيا كن شيء كب الله يتكلم إنه بحوار نكى دوني ده سمي نينكا سكول كواحد لوجا إريه واحد قرن ما يصير بالليل سكول كواحد إريه واحد ليري وضد كان مسكحدود ضدهم بيسوا هاندي كاب بالليل واحد بدن ما برن كرتي ولا إريه لكن هو يدي بكو قنعي ويدا إنه هاندي كاب يهاي هو يدي بواحد برطي إسلام تدا شاو حرطات تدا أنا جاينا كيو هاندي كاب معها ساس وحكو صابرت دبتنا وحنا نقضي إنك وجو اختراع بدن غير قلبتك
malaayimka waxaan u malaynayaa mid waaxid australia iyo jabanis baa hadda ka badan baan filaya dhowr kun maraya laakiin ninkaas waxaasoo ikhtiraacaa samaynayay waa dadaal iyo quusasho la'aan iyo juhdi iyo wakhtigiisa uu ku bixiyey meel fiican wakhtiga dhalinta dambe waxaa alam ah xanuun ah wax laga xumaado ah wakhtigiioo la luminayo oo loo waayo wax lagu qabto dhallinyaradu imika iskuulladii fasax bay ka yihin waxaa laga yaabaa in inanka ama inanta guriga joogtaa 5 jeer ku maagaan waayo maxaanu qabanaa dee meeshaan mar iska fadhiya maxaad rabtaa wuxuu rabaa in meelaha la soo wada mariyo caalamka oo dhan baynu isku haysanaa carruurta hala kaxeeyo safar hala geeyo war waxa ka muhiimsan in wax la barto ma diidani fasax iyo meel la tago laakiin wakhtigu cimrigu weliba cimrigoo dhan maaha oday cimrigi iyo carruur cimrigeed kama warramayo dhallinyaroy cimrigaagu waa waqtul injaaz waa wakhtiga wax la soo saaro waxaynu u baahannahay inaynu dhallinyarada ku qancinno wakhtiga inaanay iska lumin